waqti wacan iyo goorsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii caalamka iyo Allool media qodobadaan maanta idiin hayno waxaa kamid ah hadii Allah awoodo la idmo Israa'iil oo uu Mareykanku hub u siinayo in ay Iran weerarto Reysal Wasaraha Britain oo lagu maxkamadeeyay in uu ishortaagay baaritaan quseeya faragelinta Ruushku ku sameeyay doorashada ka dhacday dalka UK iyo warar sheegaya in Hogamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu hilaac yahay oo uu aroos isu diyaarinayo taariikhdu waa 29 Oktoobar 2020 daawadayaal soo dhawaada mar kale laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Koongareeska ee dalka Mareykanka ayaa golahaas hordhigay mooshin ah in Mareykanku Israa'iil ka iibiyo hubka dumiya dhismaha laga sameeyo dhulka hoostiisa mooshinkan ayaa ah mid ay u baahan tahay wasaaradda difaacu si ay hubkan uga iibiso maamulka Israa'iil dowladda Iran ayaa Mareykanka iyo Yahuud in badan sheegay in ay hubka waxkumaada ee nuclearka loo yaqaan ku sameysanayaan dhulka hoostiisa xildhibaanada ayaa sheegay in ay hubkan ugu tala galeen in ay ku hubiyaan gacan sareynta Yahuuda ee bariga dhexe xildhibaan Josh Gothmere oo ka soo jeeda xisbiga Democratic ayaa TV-ga CNN ka yidhi waxa aanu hubinaynaa in saaxiibkayada Israa'iil ay haystaan hub kasta oo ay u baahan karaan si ay isaga dhiciyaan ama isaga caabiyaan cadow kasta wuxuu intaas ku daray waxaanu ka wada dheregsanahay in Iran oo aan ahayn dowlad ee ah argagixiso in ay ku hamiyaan in ay dhulka hoostiisa ku sameystaan hubka waxkumaado oo ay u sameysanayaan annaga iyo Israa'iil gantaalada qarxiyo dhismayaasha dhulka hoostooda ayaa hadday Israa'iil hesho ka dhigan in Mareykanku saxeexay ama uu ansixiyay in ay weeraraan dowladda Iran taasina kalifi karto dagaal aan waxba la iskula hadhin oo dowladaha caalamku u kala saftaan xildhibaan Brian Mass oo ah ninka labaad ee mooshinkan wada ayaa isagu waraysi uu siiyay warbaahinta Yuhuudda u sheegay in hadafkoodu yahay in ay hubkan qiimo dhimis iyo amaah ku siiyaan Israa'iil si loo dedejiyo gacan ku haynta Israa'iil ee gantaaladan casriga ah sharci 2008 ay saxeexeen baarlamaanka Mareykanku ayaa dhigaya in Mareykanku markasta ilaaliyo in hubka iyo teknolojiyada Israa'iil ku gacan sareyso waana sababta dowladaha Carabta loogu diiday in ay iibsadaan diyaaradaha Israa'iil haysato ee F-35 mooshinkan oo ah mid saameyn ku yeelan kara dowladda Iran maadaama ay ku magacaaban yihiinba ayaan xukuumadda Tehran weli ka soo hadlin iyagoo hore u sheegay in aanay cabsi ka qabin wax kasta iyo tallaabo kasta oo Israa'iil Mareykanku ku naasnuujinayo ama uu ku gacan siinayo wixii ka soo kordha waanu idinla soo socodsiin doonaa insha Allah fadlan haddaanad hore nooga tirsanayn nagu soo biir adigoo mar walba barnaamijyada ku faafinaya ama la wadaagaya asxaabta bahga TV-ga KBS oo laga leeyahay dalka Koonfurta Kuuriya ayaa sheegay in ay tuhmayaan in isbedel saameyn leh ku yimid xiriirka u dhaxeeya gudoomiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un iyo dadka ka agdhow hore waxaa si weyn uga ag muuqan jirtay dowladana awood muuqata ku lahayd gabadhan la dhalatay Hogamiyaha Kim Jong-un waxaana kaalinteedii hadda buuxinaysa bay sheegeen sida ka muuqata sawiradii ugu dambeeyay ee laga helayo maamulkaas gabadh la sheegay in ay Hogamiyaha saaxiib ama jacayl ka dhaxeeyo horena uu ahaan jirtay fanaanad weyn oo laga dhigaysto dalka Kuuriyada Waqooyi magaceeduna yahay Hoyun Songwoo waxaa sidoo kale araggeedii la la'yahay xaaskii Kim Jong-un oo magaceeda la yiraahdo Reysal isbedelada iyo xiriirka ka dhaxeeya dadka hoggaanka iyo miiska saraakiisha ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ah mid sirdoonka iyo warbaahinta caalamku isku si u daneeyaan maadaama ay aad u yar yihiin wararka ka soo baxa dalkaas sida loo helo sirtoodana ay aad u adag tahay qaabka gabadhan cusub u soo shaabaxday iyo sida degdega ah ee xaaskii Hogamiyaha hal mar loo waayay ayaa laga falanqeeyay TV-ga KBS iyagoo sheegay in ay dhici karto in uu gabadhan u aroosi doono Kim Jong-un dhawaan taas oo noqonaysa wax ku cusub hogaamiyayaasha soo maray dalka Kuuriyada Waqooyi xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka Britain oo ka kala socda dhammaan xisbiyada UK ayaa sheegay in ay sharciga la tiigsan doonaan Reysal Wasaaraha Britain Boris Johnson xildhibaanada oo uu hogaaminayo Lord Peter Ricketts oo hore u ahaa madaxa sirdoonka UK ayaa kiiskan ka diiwaan geliyay maxkamadda sare ee UK oo ku taala caasimadda London Master Ricketts ayaa warbaahinta la wadaagay in ay ka
xun yihiin in ay ra'iisul wasaaraha maxkamad la tiigsadaan balse dariiq kasta oo arrintan ruushka iyo faragelintiisa lagu baari lahaa ayuu soo xidhay ayuu markaas waxay noola eekaatay inay muhiim tahay in la ogaado sababta iyo waxa uu qarinayo iyo inta faragelinta ruushku ay leeg tahay labadaba kiiskan ayay xildhibaanadu sheegeen in ay ku raadinayaan baaritaan dhab ah oo loo dhan yahay kaas oo daaha lagaga qaadayo xogta ku daahsoon faragelinta dowladda ruushka uu ku sameeyey doorashadii 2016 ka dhacday dalka Britain kiiskan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee noocan oo kale ah sidoo kale waxay xildhibaanadu sheegeen in ra'iisul wasaaruhu arrinkooda albaab kasta ka soo xidhay sababtoo oo aanay fahmin ay lagama maarmaan ka dhigayso in ay maxkamad la tiigsadaan maadaama aanay jirin meel kale oo arrinkan ay kula eersadaan aqalka Britain looga arrimiyo ee number 10 ayaan weli dhacdadan ka hadlin waxaana hore u jiray in siyaasiyiin iyo warbaahinta Mareykanku ay ka qeylin jireen in ruushka iyo shiinuhuba soo farageliyaan doorashooyinka ka dhaca Mareykanka tan Ingiriiskuna taas ayuunbay ku beeraysaa balse ma muuqato wixii ay kaga falcelin lahaayeen xitaa hadday soo xaqiijiyaan in ay faragelinta jirto waa hagaag daawadayaal wararkii caalamku waa naga inta kulanka xiga aynu ku kulmi doono gabi ahaanba waxaanu idinkaga tegaynaa amaana Allah